suugaanta mudanta ah meeriskeeda ruuxii macnaheeda garan kara mishmishiiqsigeeda iyo mulaaxdeeda dhilan kara midadoosi tirin kara muduciyo madaacali garta ugu mateli kara mililkana ku dhayi kara doodana ku marin kara maahmaah ku dari kara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين magacaygu cali kayse kabare galabta waxaan doonayaa halkan inaan ku duubo maansayir oo kooban oo ka hadlaysa wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay ee ku burburay 2 sano ka hor meelaha magaalada Istanbul wada hadaladaas waxay ahaayeen laba wada hadal u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya oo laga wada hadlayay Soomaaliyana ay midnimo sidatay aan midowno Soomaaliland ay sidatay madax banaani waxa loo wada hadlayay ma ahayn dad reer Soomaaliland ma wada hadlaynin waxa wada hadlayay waxay ahaayeen dawladda Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliland maadaama ay sida wada hadalku ku soo bilowday oo dawladda Sheekh Shariif ku soo bilowday iyo dawladda Usiilaan hogaaminaya dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ee imika Muqdisho ka talisa waxa ay bilowday in ay wada hadalkii majara habaabiso oo dhinacii Soomaaliya ay soo wakiilato dad reer Soomaaliland dadka reer Soomaaliland ee halka joogaana Soomaaliland waxay u yihiin dambiilayaal haday soo noqdaana sida dunida oo dhan laga ogyahay waa la xirayaa hadii ay soo noqdaana cafis bay soo fidsadaan oo dabeetana sidaas cafiskaasi dalku soo galaan sida darteed wada hadalka si dawladda Muqdisho imika ka taleysa ay majara habaabiso ama ay u suuldaarto sida darteed ayay u soo diratay wafdi reer Soomaaliland oo Soomaaliya xilal ka haya oo mowqif dushana Soomaaliland ka ah mentality-ga iyo maskaxdana Muqdisho ka metela marka habeenkii wada hadaladaasi burbureen ee wafdigii u maareeyay hogaaminayay Istanbul ay wada hadalka ku burburiyeen ayaan maansadan yar ee kooban sameeyay anigu abwaan ma ihi horena waan uga cudur daartay imika waan ka cudur daaranayaa maansada waxa la yiraahdaa muduc kelmadda la yiraahdaa waxay ka soo jeedaa garta Soomaaliga ee 100 sano ama 50 sano miyiga lagu ganacsan jiray muduc iyo madaacali bay leedahay madaacali waa qofka istifaacaya muducna waa qofka weerarka ah ee wax sheeganaya marka halkaas ay ka soo jeedaa muduc maansada yar ee muduc la yiraahdo ayaan halkan doonay caawina ku duubo sida iyo daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم suugaanta mudanta ah meeriskeeda ruuxii macnaheeda garan kara mishmishiiqsigeeda iyo mulaaxdeeda dhilan kara midadoosi tirin kara muduciyo madaacali garta ugu mateli kara mililkana ku dhayi kara doodana ku marin kara maahmaah ku dari kara mucjisooyin badan iyo maandhaafka dunida iyo maluugtay u socotiyo mowduuca garan kara ayaa loo marshaayo adigan masuugayn murti lagu casuuma taariikhda maalka ah iyadan murkucano waa muraayadeenne maantana ujeedada anigoon ka maagayn maarsina aanu igu jirin runta aan ka marakaco dhagihii maqlayo Muqdisho warkeedii shalay meehanawgii iyo marin abuur iyo marin habawgii min jaxaabintoodii waxay meesha keeneen dunida u marxaatiya yaani sidii Muqdisho arinta u soo abaabushay dunida oo dhan ba arkaysay inay qaldan tahay macdala dhinacii reer Soomaaliland annamaya waxaan idhi mas'uulka taariibta ah madal lama fadhiisto mowduuca kuma jiro adna kuma mateli karo anna muruqnin maalo masaafur isku maqan oo meel kale u shaqo tagay qarankana ma hoobiyay mabda'ayga ka hor yimi masiirkii dadkaygana manfac iyo gasiin iyo macmacaan ka doorbiday anna waa ka iga maqan hadii yaani inta aan idin yara fasiro qofka dadka Muqdisho soo diratay ma aha dad anigana ay mateli kara adigana ku mateli kara because reer Soomaaliya ma aha waa reer Somaliland reer Somaliland hadii ay ahaayeen way ka tageen dal kale ay xilal ka hayaan marka sabab xil wafdi loogu soo diray ama iyaga hogaamiye la yiraahdaa meesha kumay oo limba badaba loo wada hadlay Soomaaliya Somaliland ana waa ka iga maqan hadii aad maqaar saar muftaaxi ka dhigateen hadii aad masayrteen marinkii ka baydeen wada hadal ka meerteen maskaxdiinu taa tahay beritana mur iyo dacar isku soo milabadaba inta ku madiixdiyo inta ku mashxaradiyo inta ku malxiiska macaan jecesha idilkeed mukula la soo diro yaani hadii aad kuleyba kuwa anaga naga mido xaga kula joogo oo dushana reer Soomaaliland ka ah mowqifka iyo mentality-ga reer Muqdisho iyo mabdeeda aaminsan soo diranayso de anaguna yeeli maynee kuleyba hadalkii burburisay hadda doontaan mukula la soo dirta
nin maxaafsi tagay oo murdis raadinayo magoo loo lulayo adiga ku maciino muraadkaaga fuliyo dhulka ku masaxayo mudan hooyadii iyo meeshuu ku ababiyo marwadii iyo caruurtii milafsiga ka doortiyo maareeyo soo diro maareeyo waa wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo wafdiga hogaaminayay waxa laga yaabaa wafdiga dadka reer Soomaaliland ku jira ee Muqdisho jooga xaaskoodii iyo caruurtoodii oo Soomaaliland degan inaanay dhowr sano arag oo aanay Soomaaliland iman karin oo aanay chance u haysan inay hooyadooda soo booqdaan iyana waxay doonayaan in ay mas'uuliyadda inta la qaadaan ama maafiyada iyo muhuraanadaadii isbaarada kumama iyo mooryaanba soo diro ama maafigaba keen ama muuq kaleetiyo ismakeekigaaga iyo hadba muunad ii keen ama ii mukuriyo miirdoorso noqo maryaha miirdoorsan noqo oo maryahaba ka cararo maankuba ka tago ama muufadaad iyo mooskaaga labadaba kama maarantaan dhaha ama waad u muhatee mahadhooyinkii aad maatada ku layseen xabaalii malkaad iyo muqdishiyo habeenkii maxastiya caruurtii mirta dhexe la qaadee xeebta lagu maduugee beebe la mariyee xeebta lagu maduugee beebe la mariyee maydkooda haadiyo aydu maalmacunayeen lafihii mudugayeen mililkooda faadhfaadh 1989 October 50 qof oo reer Soomaaliland oo 12 jir ku jiray 12 jir ugu yaraa 60 jirna ugu weynaa oo aan dambi gelin oo caruur ahaa ayaa habeen badh inta xaafadahoodii 1 iyo 2 iyo la soo qabqabtay baa xeebta jasiira lagu laayay beebe la mariyay cagaf lagu aasay ilaa iyo haddana barbadaad kulafoodii soo rogaa marka intaasina halkaas bay ka hadlaysaa macnaheedu ujeedada aan idin mulaaxsho mirdilaacsha hadalkee min jaroorsi maahe miideedu waxay tahay midnimadu ha joogtee marinkii jannada iyo muftaaxii fardowsiyo meeqaamka sare ee lagu wada mafsuudiyo adduunyada mugeedii Muqdisho hadaa tahay anigu kuma muursado maskax anigu kuma bido morahayga ii culan madigayga ii dhalay macdantiya nimcada taal walle muran ma dhaafsado adnaha musuusuqi intaas yani waxay muujinaysaa waa hadalkii ugu adkaayay Muqdisho lagu yiraaho yani hadii albaabka jannada laga gelaya dunida loo soo saaro oo la yiraahdo Muqdisho kaliya baa laga gelaya dadka reer Soomaaliland uma diyaar aha inay albaabka ka galaan jannada waxa dunida oo dhan loo yani aakhiro dunida oo dhan yani way ka qiimo badan tahay jannada dabaqada ugu hooseysa way ka qiimo badan tahay dunida oo dhan oo 10 jeer laba laabay sida darteed dadka reer Soomaaliland uma diyaar ah hadii leeyahay midnimaba laga hadlayaa hadii leeyahay albaabkii jannada Muqdisho furaheedu haysa dadka reer Soomaaliland uma diyaar ah inay ka galaan adnaha musuusiqin inaan kula midoobana maradii cadayd oo madaxiyo minjaha iyo midigtayda taalo la iimaydayaado ilka laygu moosiyo mowd baan ka doorbida yani inaynu midnimo wada gala dambe in la aaso oo la kanfo oo la iimaydo oo xabaal laygu duugo ayaan ka doorbiday dadkii reer Soomaaliland leeyihiin idinkuna waxaad leediin midnimo intanina waxay si toos ah uga hadlaysaa madaxweynaha Soomaaliya madaxnimadu maandhow qosol lala madiixiyo marba meel u carariyo mayd loo sujuudiyo maadaysi maahe ummadaada maratee muqorraysanayse maqaarkiya hargaha iyo muuska qeydin cunayse macaruushu gubaysiyo mucjisada ku haysiya adeertaada maare warbal horta taada ku filow dadkan dhibaatadu hayso ee dunida maaragtay meel walba ka barakacay Soomaaliya dhexdeeda ku barakacay Kenya oo barakacay meel walba ku baaba'aya bal horta tan adigu macna u hel intaanad Soomaaliland soo gaarin waa su'aal mug weyn leh adoo maarayaal iyo muruq iyo awood iyo miigag samada dooliya Afrikaan madow iyo awrkilaale macangaga isku soo maldahaybaad imuuqoonin weydaan maandeeq hashaygii duhurka maroojo magli kaaga caydsho kun mujaahidiina malyuumaad la dirirto mooti ku gubay baad mariyihii ka carartay maxaad maanta iga fili hadii aad maqasheen taariikhda Soomaaliya waxa ku jirta 1977kii ciidamadii cirka ee Soomaaliya ama diyaaradihii dagaalka ee Soomaaliya cid ku dagaalantaa la waayay halka 88kii markii magaalo madaxdii labaad ee Soomaaliya la duqeynayay South African mercenary iyo calooshood shaqaystayaal la soo duqaystay si ay dalkii Soomaaliya meel ka mid ah u duqeeyaan marka iyadoo waxaasi jireen baa haddana maaragtay hadii dadku dagaalamo maaragtay qofkii xaq ku soconayaana uu xaq u helaya qofkii xaq darro ku soconayaana uu magaranaysa uu lumaya
magli kaaga caysho ku mujaahidiina malyuumaad la dirirto mootii ku gubay baad maryihii ka cartay maxaad maanta iga fay afartaasi mood iyo mahigaan onkoday iyo may subaxii hooriyo fad galbeed ka muuqdo mirta iyo saqdii dhexe dunidoo dhan marayo muunida aroortii dadku maaxda dhaansaday maalka iyo xoolaha inta aan miscilish iyo muska ooda laga rogin waqal maalin gaal iyo milaalo kala helay maangad iyo kaliil iyo laga raystay milacoo dadku wada mabsuud yahay malkadii dalkaygo dadku yahay mataano nabad lagu majeerto la mushaaxa leylko mawlaheen la caabudo waa mudanka dunida waa madasha nolosha maansha Allah wada dhaha alle mahadi weeye qarankayga maru baxay alle mahadi weeye qarankayga maru baxay shacabka mulkiyada leh iyaga mas'uulka ah maamulkiyo hogaankuna malmaluuqis maahe cod baa loogu miisaa maydal baa la doortaa maamuus la saaraa maansha Allah weeyaan mintidiyaana noqonine waxaan maansadaydii muduciga ku soo xiray inta gabayga marisay macnihiisa fahantiyo inta midha samaysay masalaha ku soo bood madashuna inoo furan hadii qof doonayo inuu ka jawaabo ama Soomaaliya ha ahaato ama Soomaaliland ha ahaatee uu doonayo inuu ka jawaabo oo uu maanso ku cabiro arinta iyada ah ee maaragtay wada hadalada waa u furan tahay. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.